اوكي سوري بعد صاحب يال waxaan ahay Ibrahim Adam muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkugu la wadaago markii aad rabto luqadda Englishka in aad ereyada xifdiso yani in aad ereyada xifdiso waxay ka dhigi doontaa in aad ka caajisto luqadda Englishka sababtu maxay tahay example haddii aan u soo qaato dugsiga quraanka markaan dhiganaynay yani qof kasta uu necbaa inuu dugsiga aado sababtu waxay tahay waxa laga doonayaa in aad cashirka soo xifdiso si aad uga baxdo sidaas la ajligeeda marka naftaada waxay ku sameynaysaa in aad maaragtay nacdo in aad dugsiga aado sababtana waxay tahay in aad cashirkaas laga doonayay aad soo xifdisay naftana way ku adag tahay in cashirka soo xifdiso haddaba marka haddii aad maaragtay isku daydo ama challenge aad naftaada geliso aad dhahdo luqadda Englishka waa in aan martaa ereyada waa in aan xifdiyaa waad bilaabaysaa for example kiina ugu fiican ama ugu dadaalka badnaado ayaa waxa laga yaabaa muddo hal isbuuc inuu erey xifdin wado waqtigaas wixii ka dambeeyana waa nacaysa yani waa adoo jooji arkaysa wad caajisaysa so taasi marka joogteen kuma siinayso si aad waxan u joogtayso marka waxaad u baahan tahay in aad raacdo strategy ama formula ama qaacido simple ah oo fudud oo naftaadana ay ka soo bixi karto oo naftaada ay awoodo oo markaasi ma aragtay ku fududeynayso inaad luqadii aad fahanto marka maanta waxaan rabaa inaan idin siiyo istiraatiijiyad ama wadada ugu wanaagsan oo aad maaragtay aad qaadi karto si aad ereyada u xasuusnaato markii aad hadlayso yani ereyga markaad qaacidadan isticmaasho kaama dhumi doono sababtuna waxay tahay maskaxdaada ayaad u train garaysay ama maaragtay aad fursad waxa siisay ee ku xasuusato wixii ay soo samaysay okay so waxaan haddaad xifdiso absolutely waa hilmaami doontaa laakiin haddii aad rabin in aad hilmaamin waa inaad raacdaa qaacidadan aan ku siin doono okay qaacidada aan ku siin doono maxay tahay wadada ugu horeysa waxay tahay Google-ka ayaa tagaysaa for example horta waxaan rabnaa in aan barano erey ayaad aragtay muuqaal ayaad daawatay sidaan idin sheegay muuqaal ayaad daawanaysay kadibna erey ayaa kaga soo dhaxbay tusaale waxaad aragtay ereyga terrify ama terrifying so waxaad rabtaa inaad ogaato macnaha terrifying okay for example qof ayaad weydiisay oo ku sharxay wuxuu ku dhahay terrifying macnaheeda waa cabsi okay so waa hilmaami doontaa sababtoo juhdi kumaada bixinin maskaxdaada dadaal mayna bixinin ee maaragtay waxaan ku xasuusan karto qof ayaa ku sheegay easy halkii marad fahantay mar dambe ma xasuusan doontid so maadaama lagu sheegay ama for example Google-ka waxaa gelisay translator hal mar gelisay Google Translator hal mar gelisay oo ku sheegay kadib halkaas kugu dambeysay soo ma so ereygaas maxay yani hadhow ma xasuusan doontid hadaa meel kale ku maqasho xaalada oo ereygan muxuu ahaa macnihiisa inaad soo xasuusto waay so wadada aan marayna marka waxay tahay 3 talaabo waa okay 3 talaabo marayna waxay tahay inta ugu horeysa waa qaadaysa ereyga Google-ka ayaa tagaysa waxa ku qoraysa terrifying meaning ay gadal ka raacinaysa yani waa dhihi kartaa what is the meaning of terrify ama terrifying laakiin waxa ka sii fiican inaad yani waxa kaaga fudud terrifying marka qortid meaning gadal ka raaci kadibna waxa ku soo bixi doonto sida tan shashada uga jeedid ay ku soo bixi yani wuxuu ku sharxi doonaa terrifying maaragtay terrifying macnaheeda sida loo isticmaalo xitaa qaab dhawaqa waad u jeedaa qaab dhawaqa ayuu ku sheegaya qaabkaad ugu dhawaaqaysa aad raacayso tilmaanta aad raacayso yani afkii xataa haddii rabto iyo dhaqdhaqaaji ayaa leedahay siday terrifying sidaan ugu dhawaaqi karaa terrifying okay so haddii aad rabtidna qaybta hoose ayaad sii aadi kartaa kadibna meeshan luqadda aad rabto ayaa gashan kartaa yani markaas luqadda fahmayso Soomaali baa tahay of course so luqadda Soomaaliga ayaa maaragtay gelinaysaa ma fahantay luqadda Soomaaliga gashanaysaa Soomaali ahaan ay kuu sheegaya waa argagax ama absi okay terrifying hatta similar words ku sii tusaya okay so midda labaad oo aad doonaysid marka inaad samaysto waxay tahay waa soo bixaysaa waxa soo galaysaa ChatGPT gaaga ChatGPT maanta waa sida Google-ka oo kale ama Chrome-ka telefoonka kugu jiro oo kale okay haddii ma aragtay maanta uusan ChatGPT telefoonkaaga ku jirin you are not serious haddii uusan ChatGPT kugu jirin ama kugu jirin Google Gemini ama uusan kugu jirin DeepSeek waxa waaye you're not serious ma doonaysid inaad wax baratid ma doonaysid inaad luqadaada hormarisid ma doonaysid maaragtay inaad waxyaalo badan aad isticmaasho ChatGPT is the only thing ama AI-ga waa the only thing ka caawin karo maaragtay inaad luqadaada hormariso ChatGPT hadduu kugu jirin hadda soo degso hadduu kugu jirayna you are good okay ChatGPT ayaa soo galaysaa waxaa ku qoraysaa sida tan aad maaragtay shashada uga jeedo give me an example of terrifying kadibna ChatGPT wuxuu ku soo dhigi doonaa sidaad u jeedidba wuxuu ku soo dhigi doonaa dhammaan sharxaada terrifying yani was terrifying maxay tahay yani terrifying was situation ku leeyahay hadda affirmation waking up for example waking up in the middle of the night and hearing footsteps when you are alone at home yani maxaa dareemi doontaa يعني wuxuu ku leeyahay haddii aad soo kacdo sakhda dhexe ama yani habeen sakh dhexe aad soo kacdo kadibna guriga adoo kaligaa joogay aad maqasho yani socod aad
maqasho maxaad dareemi doontaa yani argagax iyo cabsi badan ayaad dareemi doontaa so that is the meaning of terrifying saas ayuu kugu sharaxaya okay sidoo kale maxaa samayn doontaa dhammaan mujeeda exampleskaas ay ku siin doonaa yani terrifying oo jeeda kadib waxaad dhihi doontaa give me some sentences of terrifying sentences oo ku jiraan terrifying ayaa waxaa leedahay isi sida tan aad u jeedid ayuu ku siin doonaa marka dhammaan exampleskan ayuu ku siin doonaa fahmaysaa kadibna exampleskaas oo dhan ayaad akhrin doontaa maadaama hadda ereygii aad taqaanid terrifying macnihiisu uu yahay argagax ama cabsi dhammaan waxaan marka waxaa ku sahlanaan doonto in aad akhriso dhammaan marka maaragtay maxaa la yidhahdaa sentenceskan inaad akhriso waad fahmi kartaa They told a terrifying story about haunted road where no one dares to drive at night. So, exampleskaas oo dhan ayuu ku siin doonaa. Marka, waxaan hubaa haddii maaragtay aad qaacidadan aad raacdo in maaragtay aad xasuusan doonto erayada. So, waa inaad juhdi bixisaa, okay? Waxaad u baahan tahay in aad samaysid maalin kasto 3 eray wadadan marsii. Uma baahnid macnaha ha isdhihin 100 eray waa inaa xifdiyaa. Fiiri, hadda wax ma xifdisid. كور هل إري مالين كستا هذا صح حفظ لهاد إري بدن أي حسن لهاد بيش وجودن بيسي مالين كستا هل إري هذا صح حفظ لهاد صدن إري أي حسن لهاد so هيسنين هيسن فيري you have nothing right now واحد هذا هيستين ماله واحد تقانين ماله okay so سدح إري هيسن مالين كستو كلية سدح إري به هديهن مالين كستو وأنا طوان إري حفظيا وأنا طوان إري برتا وأنا طوان إري هلا no that is not how it works okay so just pay attention with 3 words وأنا سدح إري كلية حوق صارتها so maalin kasta 3 eray haddii aad wadadan mariso oo qodobka ugu dambeeyo aad ku gabagabayso qodobka ugu dambeeyo wuxuu yahay laban ku soo sheegay inaad google-ka ku soo qorto inaad ChatGPT isticmaasho wadada u dambaysa waxay tahay consistency inaad joogtaysid consistency is the key markasta waan idin sheegay guys consistency is the key of everything please try ina waxan aad joogtaysid marka kulama aad wax joogtaysid waa kulama waxan aad guul ka gaartaa okay so luqadaada englishka haddii aad doonaysid in aad hormarisid please joogtay waxaan yani dhabha ka ahaadaan consistency Of course. Here are some sentences using the word terrifying in different contexts. 1. The sound of the scream echoing through the abandoned house was absolutely terrifying. 2. She had a terrifying dream about being chased by an unseen monster. 3. It was a terrifying moment when the roller coaster got stuck upside down. intaas ayaan jeclaaday maanta inaan idinla wadaago kaamiradan maanan hor imaanin please haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka midana aad la wadaagto war ku maasan tahay daawashada muuqaalkan asalaamu calaykum